diyaaraddan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droonka xeeladeeda dagaal samaynteeda iyo xuquuq kale oo muhiim ah waa kuwa ugu muhiimsan aynu ku falanqayn doono gudaha barnaamijkeenan. diyaaradda drone waa diyaaradda qura ee ugu casaysan guud ahaanba diyaaradaha dagaalka iyadoo kaga gadisan wada la'aanta ay hawada sare gelayso iyadoo dhulka hoose laga maamulayo. diyaaradani waxay xambaari kartaa oo ay qaadi kartaa 80 oo madaafiicda culusa iyadoo awood leh inay duqayso oo ay burburiso masaafo gaaraysa 80 kilomitir 50 daqiiqo gudaheed. sidoo kale drone waxay qaadi kartaa madaxa gantaal nuclear ah oo 10 tan dhan laba qori oo nooca DOD-gana waxay ku leedahay qaybta hoose. sanadkii 1973 ciidamada cirka ee dalka USA markii ay ku duuliyeen koonfur galbeed dalka Vietnam waxa ay adeegsanayeen diyaaradda drone balse si toos ah warbaahinta caalamka uguma soo bandhigin. diyaaradda drone markay waajahaysa cadowgeeda iyada iskeed u samaysanaysa logisticskeeda iyo sahankeedaba kadib markay xaqiijiso fadhiisinka cadowgeeda waxay si toos ah u bilaabaysaa weerarkeeda. diyaaraddu waxay hawada sare dul heehaabi kartaa muddo 2 maalmood ah iyadoo qaadan karta shidaal dhan 380 litir. diyaaradani waxay gaar u tahay hay'adda cirka iyo difaaca ee dalka Mareykanka walow ay jiraan dalal badan oo Ruushku ka mid yahay oo iibsaday drone. magaca diyaaradda ee drone ayaa ka yimid magaca shinida keeda lab ee rimiya boqoradda waana ka ugu cimriga dheer marka laga hadlayo nolosha shinida. waa diyaaradda qura ee ugu qiimaha sareysa sayladaha dunida ee hubka iyadoo qiimaheedu dhan yahay 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Engineer John Mauro ayaa leh nashqadeynta iyo sameynta diyaaradani isagoo qaatay 6 abaalmarinood oo uu ku mutaystay hirgelinta diyaaradani. 11 bishii December 2007 ayaa diyaaradda drone indhaha caalamka loo soo bandhigay iyadoo noqotay hormuudka diyaaradaha dagaalka ee dunida oo dhan. saad ula socoto barnaamijyada dambe subscribe garee.